xukuumadda Soomaaliya ayaa goordhow ku dhawaaqday in loo yeertaba safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Addis Ababa Ethiopia sibaa la yiri wax looga weydiiyo damaca guracan ee Abiy iyo gardarada Ethiopia ay kula dhaqaaqday madax banaanida Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo shacabka Soomaaliyeed la hadlaya goordhowna waxa uu yiri taaka kamida barigeena iyo badeena iyo cirkeena laguna soo xadgudbi karo waayahay tafaasiil baan ka bixin doonaaye Soomaaliya soo dhawaada horta xalay Addis Ababa lagama seexan dabaaldegyada muusiga baambeyda gawaarida yaase u xardhan yihiin mootooyinka ana yaababa ayaguna xala ma seexan anaguna xala ma seexan saxaafadii reer galbeedkana ma seexan oo marba qubura qad kala soo gelinay Boortaqiis ha noqdo ama Czech Republic ha noqdo ama Mexican ha noqdo waxa Muuse Bixi Abiy ay ugu magac dareen momentum of understanding ma heshiis ba mise waa is afgarad quburada gaalada waxay leeyihiin waa booska oo doonta gabadhii garad jaamac garad cali waa is afgarad in garaadku ku siiyana ya waa heshiis micna wuxuuba heshiis maana waa iska wada afgarad micna waaya kaftanka barnaamijkeygana niman badan oo hartiya waxay leeyihiin boosow oo nabad iyo CBB ahdee heshiiskii Djibouti ka dhacay ba dekedan Abiy ku siiseen oo Muuse gadaal ka dharbaxdeen hoos ka siidaan hawiyow inaga daaya sheeka irir Soomaali oo regionka ama gobolka saddex dawladood oo qaliij amal ah oo la dheereeyay in ka abuurtaan rabtaay waa fahamsanahay waxba waqtiga naga dilina kaftankaasna jawaab baan ka wadaa waaya intaanan update u gudo gelina maxaa ka cusub garowe doorashadii Puntland marxaladda meel xasaasi maraysa bal intaan Puntland laftirkeeda u gudo gelin Facebook baryahan qaraabada idaawanaysa upgrading buu wadaa bishan January iyo tii hore December marka waxa la rabaa ina like si gantaaladan meeshii loogu talagalay u gaaraan barta YouTube saaxiibada ku xiran waxaan leeyahay soo dhawaada mugo hadda inta fadhisaan siyaasadda waa idin fadhisaan inta leeyahay waaya intaana wallahi Muuse Bixi ciidanka fasaxsa weynay fasax ciidanka dekadii buu fasax dekadii laakiin anaga naqaasa fuusto ugu riixeen iska daaya soo dhawaada garowe ayaa rabaa marka hore inaan update ka siiyo horta aniga hala ma seexan qadkaas ku jiray doorashada Puntland mugeeda iyo xiiseeda iyo xamaasadeeda xambaarsantaa waana Soomaaliya qayb kamid ah waa way istaahilaan horta shalasha idin sheegay wixii ciidan ma jeerteen lahaa ee laascaano ama boqdarkeen jiray waa yimaadeen iyagoo ka biyadiidsan nidaamka uu Deni 66 u soo xushay oo isinkiiba iyo boqorkii iyo beeldaajiya inta magac laga tiro ba magac la dul saarana micna Deni wuxuu isku bedelay iskaan buu isku bedelay iskaan wixii rabo u tirtiranaaba waaya computer uu noqday Deni garaadada ku eegada waa computer waxay noqotaba ciidan ma jeerteena oo iska soo horjeed Aranjan kaliya dhiinba mucaaradkii iyo ciidankii Deni oo xalay iska soo horjeeda ba waxa maqlayaaba ayagoo wacanaya waan odayaal la wacanaaba gartar galaba waa nin dhan oo dabajeex isugu taw odayaal wacanaya waan ka warama inay isdilaan marban micna mar haddaan la isdilaynin ma jeerteeno mar haddaan la isdilaynin dagaalka galab maqli jirteen hadda doorashada gala afarta bishan January waxaa loo madalsan yahay in la doorto gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxa kale oo dhan doorashada dhigeysta madaxweyne Puntland oo aan faragashan oo aan dhilqa amal reeraha dhax gelin doorashadii waqtiga ay soo dhowda ma dhicin Deni ninka la yiraahdo Farola soo sameeyay Abduuli Ali Gaasa soo sameeyay iyo kuwii la halmaanay niman inta jaljalay iga dhaaftaan doorashada gala xalay xabad dhici weysana waliga dhici meesada idin sheegaya waxay noqotaba gudoomiyaha baarlamaanka Deni nin waalno warsangeli wataa afarta bisha hadii uu ku guuleysto Deni imaamadiisa ma haysan karo haddii laga guuleystana Deni de farmaajo u eka garow xamar u eka mucaaradkii badbaado qaran u eka unukaale u eka waxyaaba ya waxay noqotaba sidee bish Deni intuu mandate haysto waqtiga uu ka qasaaran adinka iska qasaaran asna iska qasaaran 8 January noo madala waaya Deni iyo waaba laga tagay sheekada waaba culustaaba hadda waxay maraysaa dekadii baa hoos ka sii Cabdi Xaashi hadda wuxuu yiri xoolo neef xoolaha oo saylad la geesanay ganacsi ma hanuurin badda Soomaaliya waaya soo dhawaada horta waxaan rabaa kaftankii nimankii harti ama CBB inaan ka jawaabo
waxay dhaheen boosow shirkii jabuuti anaga waa ka shakisannahay haye xasan iyo ismaaciil cumar geelle iyo biixi hoos ka taabashay wadaan micnaha hoos ka taabasho ilmaadeeryaal soo dhawaada qoborada qaarna waxay leeyihiin abii sheekadan dekada hore ugu xariiqneed waa run horta CBB na u jawaabayaa horta abii maalinta xukunka yimid horta Ethiopia sideedaba dal baylaha oo daris la ah oo islaama dhaaf mayso abiina kuma sii jiraba abii qorshahan wuxuu la watay nin la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay raatirasho sameynay micnaha ku daarasho mataqaan ku daarasho waa ka xumahay waxa ka xuntaa ma leh taariikhda dib ugu laabanayna kaftankaana ku burinaya horta ila daawada aysan dekada lahayn markay umad kala wadatana waa naar horta ka dhageysan maayo abii qorshahan ninka la yiraahdo Farmaajo la dajiyay kaartadan Farmaajo meeshuu ka baxay xasan jilaac lagu ma oga in dekad la dhiibo haddii xasan lagu ogaan lahaa nama qorateen ninka la yiraahdo abii kama dhaceen burca iyo hargeysa kama dhaceen horta muuse biixi looma dhuunteen haddii xasan laga heli karo in dekado yaa laga helo horta intaasaan le CBB oo xasan reerkiisana dabcan Ethiopian ku arki kara maaha asaguna nin dalkan ka gorgortama maba ahanba nin taaka Soomaaliya ka gorgortama xasan maaha horta haddii xasan jilaacaas lagu og yahay muuse biixi lama aadino abii waa yaqaanaan nibaax nin ganay nin galaday waa kala garanaya waa yahay intaas waa jawaabtii xukuumadda Soomaaliya falcelinteeda xataa ka fahma sida xasan sheekh maxamuud uusan marna u aqbalin xadgudub dalkan loo geysto ama badiisa ha noqoto ama dhulkiisa ha noqdee xukuumaddii waxay u yeertay safiirka Soomaaliya u fadhiyay Addis Ababa waxbaa laga weydiinaa leeyahay anigu waxaan jeclaan lahaaba kan hadda xalana u joogo in dabada inta laga dharbaaxo yaa oo la karbaasho oo la yiraahdo bax dalka nooga bax waxay noqotaba jawaab diblomaasiyadeed waay xukuumadda Xamse Cabdi Barana kulley igaarkaas ogaadeen wallahi horta waa geesi haddana shacabka Soomaaliyeed buu la hadlay wuxuu yiri ha walwalinina nabad ku seexda anaga naqaano yiri sida Ethiopia dal iyo dibad yaa sida ula dagaalan anaga naqaano yiri igad iyo beesha caalamka Mareykanka midowga Yurub iyo African Union ba Ethiopia xayndaabka waa ka baxday hal uu soo cesho yiri waa ceebeysan yihiin ba Ethiopian way xalad sawa de dabcan meel la seexdo ma jirin dabaal degeeda Sacuudi qorshahan qorsho hore u socdo aha waxa rabaa marka heshiiskii shalay momentum of understanding biixi iyo abii gaareen baa wax ka rabaa inaan ka dhaho waxba idin gurbiyaanu bilaash uma maqni xalay saxaafadda reer galbeedka qubradii Czech Republic iyo Greek iyo Mareykan kulli qadka la soo galiyay anagoo qabiir hawiye ahna yaa waa idin faahfaahinaya waxay leeyihiin heshiiska Muuse Biixi iyo ninka la yiraahdo abii ay wada gaareen momentum of understanding waa is afgarad waa booska oo doonta gabadha garaad jaamac dagaalka gala gabadhiis waa doonta waa heshiin un bas gabadhi ma garaadkiisa dagaalka gala maya markuu garaadka faataxa ku dhaho oo yaa guriga gala markuu yiraahdo garaadka waa heshiiska dhaqan galaya heshiiska wuxuu ku dhaqan galayaa marka intaas waa kaftanay heshiisku wuxuu ku dhaqan galayaa in Muqdisho abii iyo xasan isku imaadaan oo ay kala saxiixdaan kadib intaas kuma ekay in baarlamaanka Soomaaliya inta la geeyo ee ay saxiixiyaan wixii intaas ka hooseeyo dhan in iska careysan aniga Muuse Biixi markaan qiimay xataa reer galbeedka sheegaya nin dagaalkii dhulbahanta ku jabay oo shacabkii qarankii uu u sheegay ama ay siyaasiyiinta Soomaaliya u sheegayaan burburay shacabkii wax lagu ilowsiyo waa horta hada siyaasad aan fahmaysan shacabka Soomaaliland ba is ilowsis anjarad ah loo shiday qudooda abii ma dhaafin oo waxay leeyihiin waa nin subaxii damci uu ku soo kaco uu iska sheega nin ahdaaf dheer ama go'aamo adag ma laha marka heshiiska waxay leeyihiin mid sii soconaya ma laha waa mid abii uu ugu cagajuglinaya qaranka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu cagajuglinaya Muuse Biixi aada ama waxaan ii samay xasan uu leeyahay aad waa ka saah Muuse maqalno ku haya marka waya intaasaa barnaamijkeena kusoo gabagabeynaya saakana intaasaa abdheeda qaraabo mar kale iyo saaxiibkiin booskooda leh sida iyo nabadgelyo bye bye